السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا حرين جنرال كينا جنرال كحكمة تيوب يوتيوب كسر هذا مقال badanaa filimaantu waxay ka sawiraan hackers-ka waxyaabo xadkabax ah sida inay kula wareegi karaan dhowr daqiiqo magaalooyin sababi karaanna hub dagaal baan oo nuclear ah inkastoo taasi tahay ka badbadin laakiin markii dambe waxaa la ogaaday wadda dhabta ah ee hackers-ka maantana xaggan waxaan kugu soo gudbin doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo tobanka hackers ee adduunka ugu awoodda badan marka loo eego khataraha ay geysteen daawasho wacan muuqaalka oo dhammaystiran hackerka u dhashay dalka Great Britain laguna magacaabo Gary McKinnon waa injineer nidaamiya macluumaadka wuxuu awood u yeeshay muddo 13 bilood laga soo bilaabo 2010 inuu gacanta ku dhigo wax ka badan 100 server oo laga leeyahay Mareykanka taasoo ay lahayd wakaalada NASA una hawada u diray masaxayna wax ka badan 100 fayl oo aad ugu muhiim ah wakaalada NASA u kalifay xukuumadda Mareykanka inay ku bixiso $700 xalinta dhibaatada u geystay ninkaas sidoo kale wuxuu gacanta ku dhigay nidaamka xakamaynta gantaalada guud ee NASA waxa intaana ka sii daray inuu ku jeesjeesay ciidanka una soo diray fariimo jeesjeesa u sheegay in nidaamkoodu aad u daciif yahay loogana baahan yahay inay sidan wax ka bedelaan NASA waxay sheegtay in weerarkaasi kii ugu weynaa ee uu soo qaado qof shakhsi ah isagana mar laga weydiiyay howlgalkaas waxa uu yidhi waxaan u baahnaa inaan kala xaqiiqsado xaqiiqooyinka ay NASA ka qarinaysa dadka oo ku saabsan noole aan noolaha bini'aadamka ahayn ugu dambeyntiina waan ogaaday ayuu yidhi laba nin oo lagu kala magacaabo Michael Bevan iyo Richard Price 1994 inay ka dhex dusaan nidaamkii wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon waxaana socday howlgalkaas muddo 7 intaana mayna ku joogsan xitaa waxay ogaadeen sirdoonno badan oo Mareykanku leeyahay kuna faafsan guud ahaan waqooyiga taariikhduna markay ahayd 1996 gacanta ku dhigay nidaamka dabagalka ciidamada cirka Mareykanka NASA iyo waliba urur kale oo lagu magacaabo ururka North Atlantic Treaty Organization iyadoo weeraradaasina ay sababeen dhaawacyo badan kuna masaxeen faylal badan oo u muhiim ah Mareykanka dhibaatooyinkii ugu badnaa ay geysteen waxaa ka mid ah inay madaxa isku gelin gaareen labada dawladeed ee Mareykanka iyo North Korea markay gacanta ku dhigeen kombiyuutarro badan oo ay North Korea ku sameeyeen cilmi baaris sidaana ay kula wareegeen xogagii dhanaa ay diyaarinayeen maadaama ay ragganna joogeen guud ahaan Mareykanka isticmaalayeenna kombiyuutarro yaala dalka Mareykanka North Korea waxay noqotay mid aad dul saarta Mareykanka xaggaasna waxaa ka dhalin gaaray dagaal muwaadinka Mareykanka ee Johnson and Sita waxaa lagu soo eedeeyay la wareegidda ciidanka isagoo isticmaalaya kombiyuutarradooda adeegsanayana hab lagu magacaabo botnetna waxay tahay adoo kombiyuutarka qofka kale kala wareegaya qaybo ka mid ah shabakadiisa sidaana ku maamulaya kombiyuutarkiisa isagoo aan dareemin shakhsigaas Johnson and Sita wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka ugu caansan ee adeegsada barnaamijkaas maadaama adeegsanaya kombiyuutarkaaga in laga hortago waxa u ekeyd wax mustaxiil ah maan macquul ahayn 2014 kombiyuutarrada la wareegay waxay gaadheen 1 milyan oo kombiyuutar isagoo dadkan uu sheegay inuu qof walba oo raba inuu baabiyo website uu fududeyn doono isaguna uu iska bixin doono lacag waxaana gacanta lagu soo dhigay markii taariikhda 2015 mid ka mid ah dadkii ka codsaday inay website ku duulaan uu isagu ahaaba mid ka mid ah dadka u shaqeeya FBI-da sidaana waxaa lagagala wareegay guud ahaan lacagta uu ka shaqeeyay hackarnimada oo gaadhaysa lacag dhan $85,000 iyo gaadhigiisii BMW-ga ahaa waxaana xabsiga la geliyey laguna xukumay muddo dhan 60 bilood Roberto Gonzalez intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2007 waxa uu jabsaday wax ka badan malaayiin kaadhadhka lagula baxa lacagta isagoona dadka u ugaadhsanayo kombiyuutarradooda u dhex dhigi jiray koodhadh oo ururinaya macluumaadka Visa kaadhkiisa shakhsiga ah markuu macluumaadka gacanta ku dhigana waxa uu si dhib yar kagala baxayay lacago badan isagoona isdaalin waxauna dhisay website lagu magacaabo Shadow Crew oo ka kooban wax ka badan 4,000 oo member dadka shaqaalaha ka ahna website-ka waxay iibin jireen baasaboorada fake ah iyo liisanada darawalnimo isagana waxa gacanta lagu soo dhigay maruu joogay New Jersey laguna qabtay wax ka badan 15 kaad laakiin nasiib darro uu ka baxsaday isla markiiba haddana gacanta waxa lagu soo dhigay dhammaadkii 2008 isagoo u gaarsaday wax ka badan malaayiin shakhsi Visa kaadhadoodii waxaana xabsiga lagu xukumay ilaa 2025 Michael Kelsey oo ku caan ah magaca ilmihii maafiyada ahaa waxa uu ahaa arday dhigta dugsi sare markii uu awood u yeeshay inuu ka dhex dhiso ilaalada website-yada dunida ugu waaweyn waqtigaas markii lagu jiray 2000 website-yadii uu ogaarsadayna waxay ahaayeen Yahoo-na xilligaa waxa uu ahaa website-ka ugu weyn guud ahaan dunida Mike-na wuxuu awood u yeeshay inuu hal saaco dhammaystiran maamulo Yahoo waxaana markaa faragelin la soo galay Bill Clinton oo ahaa xilliga madaxweynihii Mareykanka isagoona u xilsaaray koox ka mid ah shaqaalaha dawladda si ay gacanta ugu soo dhigaan ninkii ka dambeeyay dhacdadaas waxaana ugaarsanayeen guud ahaan dadkii maqlay dhacdadaas oo dhan ugu dambeyntiina gacanta waxaa lagu soo dhigay ilmihii maafiyada lagu magacaabi jiray isagoo howlgalka diyaarinaya waxaana la sheegay in haddii howlgalkaas fulin lahaa ay gaari lahayd khasaaraha uu geysan lahaa wax ku dhow $1 bilyan waxaas oo dhanna waxa uu sameynayay isagoo weli arday ah Kevin Mitnick waa mid ka mid ah hackerska ugu waaweyn taariikhda isagoo sanado badan mas'uul ka ahaa xadidda xogaga shaqaalayaasha iyo xafiisyada iyo weliba website-yada waaweyn wuxuuna awood u lahaa inuu baabi'iyo faylal badan
soona geliya faylasha uu baahan yahay waxaana si fudud ku jabsan jiray Gmailada xogaha shakhsiga iyo dhammaan macluumaadka uu baahan yahay ilaa uu ka noqday shakhsiga koowaad ee baadigoobka loogu jiro marka la eego hackerska guud ahaan caalamka gacanta lagu soo dhigay taariikhda markay 1995 ciqaabtiisii markuu soo dhameystay kadib Kevin ninka waa mid kamid ah dadka shirkadaha waaweyn ka badbaadiya weerarada ay soo geystaan hackerska kale Adrian Lamo si iskooga ilaaliya dabagalka ay soo sameyn doonto dawladuhu iyo waliba meelaha ku qaadi doona weerarka waxa uu isticmaali jiray kombiyuutarada caamka ah ee meelaha yaala publica weeraradiisii ugu waaweynayna wuxuu ku qaaday Microsoft, New York Times iyo waliba Yahoo isagoo si jaajusnimo ku geli jiray kombiyuutarada laga wada shaqada shirkadahaas si duumaaleysiina ugala soo bixi jiray xogaga ugu baahan yahay ugu dambeyntii waxa gacanta lagu soo dhigay 2003 Vladimir Levin hackerska badankooda waxay ugaarsadaan macluumaadka warshadaha macluumaadka dawladaha shirkadaha waaweyn iyo waliba xogaga ciidamada iyo meelo kale oo kala duwan laakiin hackerkan waxa uu kaliya ugaarsaday mid kamid ah bangiyadii ugu waaweyn ee caalamka Citibank waxa uu xaday wax ka badan 10 milyan oo lacagihii ay lahaayeen dadku ah ugu dambeyntiina waxa lagu qabtay Ingiriiska waxaana sida loogu soo gudbiyay Mareykanka waxaana xabsiga ku jiray muddo 3 sano bangigiina wuxuu awood u yeeshay mar labaad inuu dib u soo celiyo lacagihii lagala baxay waxaan ka ahayn 4 milyan aan la garanin meel uu geeyay Stone hackerkan magaciisa dhabta la sheegay laakiin waxa uu caan ku ahaa magaca Astra ilaa laga shaaciyay ugu dambeyntii markii gacanta ay ku soo dhigtay booliska Greek Astra inuu yahay shakhsi xariif ku ah xisaabta da'diisuna ay tahay 58 sano una ahaa shakhsi ku nool magaalada Athena ee dalkaas Greek inkastoo weeraradiisu soo bilowdeen 2003 laakiin waxa indhaha lagu qabtay markii taariikhda 2005 isagoo xilligaas xaday macluumaad laga lahaa dalkaas Faransiiska oo ay lahaayeen ciidamada wadankaas la sheegay inuu macluumaadkaas uu ka iibiyay wadamada dibadda ciidamada Faransiiskuna waxay sheegeen in khasaarahaasi uu gaaray 360,000 macluumaadka ugu soo gudbinayna qofkii dareemaya xorriyadda ama fikir dhiibashada awoodda isla kulanka iyo awoodda isgaarsiinta waxaan aragnaa xuquuqda madaniyiintu inay tahay qasab si ay dadku u gaaraan horumar ma cafinayno mana iloobeyno iska kaaya ilaaliya waa waxa ay tiri gruubka lagu magacaabo Anonymous marka cidda ay yihiin ay ka warramayeen waxaa la sheegay inay yihiin hackerska ugu awoodda badan guud ahaan dunida koox aan la garanayn cidda ay yihiin iyo waliba inta ay ka kooban yihiin inay adeegsadeen maaskiga caanka ah ee lagu matalay filimka Fornita si fiican u soo caan baxay 2003 iyagoo mabaadi'da ay aaminsan yihiin ay tahay xorriyadda internetka ay leeyihiin weeraro caan ah sida weerarkii ay ku qaadeen dawladda China iyo Vaticanka iyagoo si siyaasadaysan u ugaarsaday website-yada waaweyn iyo shirkadaha dunida ugu waaweyn sida Mastercard, Amazon khasaaraha ay geysteen waxa lagu qiyaasaa wax ka badan malaayiin muuqaalkeena maanta intaas ayuu ka eegyahay fadlan haday tahay markii koowaad soo boqoto fadlan channelka subscribe saar videogana like saar inta ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan kaga tagayaa peace Red cups, my party hat on you, my party favor.